السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واد مدنتي وبدكيجيو لبدا كلمدودا نيمان كوفرين إنو كراعن إيا نيمان كوررين إنو كوفرين تصحدي waxa weeyaan niman kuurrin inuu kuufurin aabahina ka soo hadhay iska jir waa abida ila abida waa dhaxal Soomaaliduna way ku camal fashaa maxaa looga jeedaa waxa looga jeedaa ninka waxa ugu baahi jecel ninka guursanaya iyo ninka dhasha yaa ugu baahi jecel uguna itaalna qangargaarkan aad ugu baahan haddaba ninka guursanaya maalinta ina adeerkiibu horta tawdaa dhageyso aabaha walaalkii ina kii u dhalay ka hooyada dhashay isaga kaaga soo horeynaya ka hooyada dhashay dhaxalkii naagtaada uu sugaya laakiin kana garabkii gaashankii uu kugu waayaya kolka waad mahadsantihiin kelmadaha la kala faa'iideyso waxaan doonaynaa waqti inaad nagu yarsiisaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعيق واحد الأبو إسماعيل عبد الله يا الله رضا ولكن سؤال لما سؤال أدبو يودي سؤال واحد يقولي نيمان كراعين إنو كوفرين من واحد يقولي نيمان كوررين إنو كوفرين واحد وين سؤال صحدي ونيمان كوررين إنو كوفرين وين سؤال صحدي كل كا واحد كده ينتهينا معناه يجو qofka sheeko maxaa ku dhaar arin aad leedahay soo dhax gala arinkan aan waxba ka qaban kareenin oo aan ilama aan guteedi fulin kareenin qofkaasi inaad aad raacdi maaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waxa la yiraahdaa Kaliil Suge waxaan galaa Beekadus nima ku furaynin inuu ku rarin maaragtay nimaan ku raraynin inuu ku furin marka kelmadda waxay ka dhigan tahay nin aan taladaada aan ku hagaajinaynin hamba maad aragteenay maaragtay inuu taladiisa ha qaadin weeyaan marka inaad qaadato ma aha niman ku raraynin nin ku raray inuu ku furin sidii wax u xidhay isaga un ba garanaya furayo adiga hadhow toole markaad meeshii tagto adiga raranay marka hadduu ku raro inuu ku furaynin waad garanaysaa marka sidii uu xidhay laga yaabaa inuu ku qaribaba qofkaasi uu maaragteenay jar kaaga boodo hadhow toole wixii aad la kharibanto oo la cadilanto iyo dhici karta markaas haduuna kullaba ku furaynin inuu ku rarin weeyaan kelmadda. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.